السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنالكا دكتور سيكي. waxaan filayaa inaan dhammaan wada garanayno waxa uu yahay hargabka. balse muuqaalkan waxaan kula wadaagi doonaa dawooyinka dabiiciga ah ee lagu daweyn karo hargabka ama sidoo kale looga hortagi karo hargabka. marka hore waa maxay hargab? marka hore hargabka waa xanuun uu keeno nooc ka mid ah fayrasyada. fayraska keena xanuunkan hargabka waxaa loo yaqaanaa rhinovirus. wuxuuna ka mid yahay xanuunada ugu badan ee bulshadeena ku dhaco. oo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qof walba inuu ku dhaco 1 mar, 2 mar, 3 mar iyo ka badan sanadkiiba. marka wuxuu ka mid yahay xanuunada soo noqnoqdo dadkana aad ugu dhaco. waa maxay astaamaha lagu arko xanuunkan hargabka ah? xanuunkan hargabka ah inteena badan uu ku soo wada dhacay ama wada naqaan astaamaha uu leeyahay. astaamahaas waxaa ka mid ah qofka inuu dareemo qandho, qarqariyo, madax xanuun, murqo xanuun, caajis, sanboor, hindhisyo iyo qunfac. guud ahaan calaamooyinkaas iyo ka badan buu isku arki karaa qofka leh hargabka. haddaba xanuunkan aan ku sheegnay hargabka marmarka qaar oo dhif ah haddii la daweyn waayo wuxuu keeni karaa xanuuno kale. xanuunada kale uu keeni karo waxaa ka mid ah xanuunka sanboorka ah oo afka caafimaad aan u naqaano rhinitis. sidoo kale wuxuu keeni karaa xanuunka burkeytada oo afka caafimaad aan u naqaano bronchitis. sidoo kale wuxuu keeni karaa xanuunka oof-wareerka oo afka caafimaad aan u naqaano pneumonia. guud ahaan xanuunadaas iyo ka badan buu keeni karaa. markaa marmar dhif ah ayuu keena xanuunadan. xanuunadan aan soo sheegay muuqaalada xiga ayaan ku sharxi doonaa waxa ay yihiin, waxyaabaha sababo iyo sida loo daweeyo. waxaan u gudbayaa qaybta ugu muhiimsan casharkeena oo ah waa maxay dawada loo isticmaalo ama qaab noocee ah ayaa loo daweeyaa hargabka. intaan bilaabin qaabka loo daweeyo hargabka waxaa muhiim ah inaad ogaatid hargabka looma isticmaalo dawooyinka qalajiyaasha ah ama wax loo yaqaano antibiotics. sababtoo ah antibiotics ama qalajiyaasha waxaa la isticmaalaa ama waxaa loo isticmaalaa xanuunada ay keenaan bakteeriyada. balse xanuunkan hargabka ah ma keento bakteeriya oo waxaa keena nooc ka mid ah fayrasyada sidaan soo sheegnay oo loo yaqaano rhinovirus. marka looma isticmaali karo dawooyinka qalajiyaasha ah ee loo yaqaano antibiotics. haddaba waxaad isweydiinaysaa ditore, haddii aad dhahday lama isticmaali karo qalajiye, maxaan iskaga daweyn karaa hargabka? dawada hargabka waxaan kala qaadi doonaa 2 hab oo kala duwan. habka koowaad waa in la daweeyo calaamadaha uu leeyahay hargabka. habka labaadna waa in la isticmaalo dawooyin dabiici ah oo ah kan ugu fiican. haddaan gudo galo ama aan sharxo qaybta koowaad ee aan dhahay waa in la daweeyo calaamadaha. tusaale ahaan haddii uu hargabka uu leeyahay qandho waa in la daweeyo calaamadaas oo la isticmaalaa dawooyinka qanajiyaasha ah. sidaas si la mid ah haddii qofku uu ka cabanayo ama qofku uu leeyahay madax xanuun waa in uu isticmaalaa dawooyinka xanuun baabi'iyaasha ah oo loo yaqaan anti-pain medications. marka dawooyinkaas markuu isticmaalo qofku wuxuu daweynayaa calaamada hargabka ah. marka habkan waa loo daweyn karaa hargabka. sababta loo daweynayo calaamada wax kale ma ahan hargabka dawo gooni ah oo loo isticmaalo ma lahan. marka waxaa kaliya loo daweyn karo waa in calaamadii la daweeyo ama dawooyin dabiici ah oo caafimaad laga helayo la isticmaalo. haddaan u gudbo qaybta labaad oo ah in la isticmaalo dawooyin dabiici ah. dawooyinkaas dabiiciga ah waxay sare u qaadayaan habdhiska difaaca jirka. marka qofka waxaa adkaanayso inuu ku dhaco hargabka ama haddii uu ku dhaco hargabkaba si degdeg ayuu ugu soo bogsanayaa. dawooyinka dabiiciga ah ee loo isticmaalo in lagu daweeyo hargabka waxaa ka mid ah number 1 sanjabiil iyo liin. sanjabiilka iyo liinta waxaad u isticmaali kartaa qaabab kala duwan, balse qaabka ugu fiican waa inaad soo qaadaa sanjabiilka iyo liintii kadibna aad ku dhex ridaa biyo. biyahaasi kadib aad kululeysaa ama aad diirisaa. biyahaasi markaad kululeysid waxaa sameyn kartaa inaad ka miirtid sanjabiilka iyo liintii kadibna biyahaasi si gooni ah aad u cabtid. waa qaabka ugu fiican ee loo isticmaalo. malabka nooguma baahna sharaxaad iyo cilmi baaris. sababtoo ah eebbaweyne ayaa qur-aankiisa kariimka ah nooga sheegay inuu yahay caafimaad malabka. number 3 inaad isticmaashid vitamin C. vitamin C waxaad u isticmaali kartaa 2 qaab oo kala duwan. marka koowaad waa inaad cuntid cuntooyinka ay ku badan tahay vitamin C ama cuntooyinka laga helayo vitamin C.
tusaale ahaan inaad isticmaashid liin dhanaanta oo kale. liin dhanaanta waxay qani ku tahay ama waxaa ku badan maadada vitamin C. marka maadadaas vitamin C waxay sare u qaadaysaa habdhiska difaaca jirka. marka waxaa si degdeg ah u bogsiinaysaa ama waxaa si degdeg ah ugu hortagaysaa hergabka. sidoo kale vitamin C waxaad u isticmaali kartaa inaad soo iibsatid tablets ama kiniiniyo oo inta badan farmashiyaasha xaafadda lagu iibiyo kadibna aad cunto. sidoo kale waxyaabaha dabiiciga ee lagu daweeyo hergabka waxaa ka mid ah maraqa, gaar ahaan maraqa digaaga. cilmi baarisyo badan oo la sameeyay ayaa cadeynayso in maraqa digaaga ah oo lagu daray khudaarta inay ka hortagayaan faafidda fayraska keena hergabka. marka waa muhiim inaad isticmaashid maraq iyo digaag la isku kariyay. sidoo kale waxyaabaha dabiiciga ah ee laga hortagi karo ama lagu daweey karo hergabka waxaa ka mid ah toonta. toonta kaliya laguma daweeyo hergabka, balse waa laga hortagaa xitaa. way ku fiican tahay inaad isticmaashid toon badan. dhakhaatiirta way ku taliyaan. sidoo kale dhakhaatiirta way ku taliyaan in dadka aad u isticmaalaan toonta, gaar ahaan inay cuntada ku darsadaan. sababtoo ah waxaa la ogaaday in dadka isticmaala toonta badan ay habdhiska difaaca jirkooda uu ka xoogan yahay dadka aan isticmaalin. sidoo kale waxyaabaha lagu daweey karo hergabka waxaa ka mid ah filfisha. filfisha waxay ka mid tahay waxyaabaha ka hortaga hergabka ama waxyaabaha daweeyaba. sidoo kale filfisha waxay ka hortagtaa caabuqyada ku dhaca sanka. guud ahaan qodobada aan soo sheegay ama dawooyinka dabiiciga aan soo sharaxay waa kuwa la hubo oo cilmi baarisyo la hubo lagu sameeyay. sidoo kale qodobada aan hadda soo sheegay waa qodobada ugu badan ay dadka isticmaalaan ama qodobada ugu badan ay dadka iskaga daweeyaan hergabka. way jiri karaan habab ka duwan kuwa aan hadda soo sheegay oo aad adiga isku daweysay ama aad adiga wax iskaga garatay. waxaan kaa codsanayaa inaad qaybta commentiga ama qaybta faalada ah nagula wadaagtid haddii aad garanayso qodobo ka duwan kuwa hadda soo sheegnay, si aan ugu faa'iideysano aniga iyo bulshada kaleba. anigoo kaaga mahadcelinaya daawashada muuqaalkan, waxaan kuu rajeynayaa caafimaad. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.